Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa booqasho ku tagay Somaliland xilli ay cirka isku sii shareereen hadalhayn iyo falcelin caalami oo ka dhashay aqoonsi dunida ku horeeyay oo muran iyo buuq dhaliyay. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa gaaray Somaliland isagoo halkaasi ku tagay booqashadii diblomaasiyadeed ee ugu sareysay ee nooceedu ah tan iyo markii Israa'iil ay noqotay dalkii ugu horeeyay dunida ay aqoonsada goon isu taaga Somaliland. Arrin dhacday toddobaadyo iyo bar ka hor taas oo dhalisay cambaareen ballaaran iyo walaac laga muujiyay suurtagalnimada in Falastiiniyiin si khasab ah halkaasi loogu raro. Gideon Saar ayaa maanta ka soo degay caasimadda Hargeysa halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Somaliland. Saar ayaa la qorsheeyay inuu la kulmay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaana baraha bulshada ku faafay muuqaalo muujinaya labadooda oo wadajir ah. Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay booqashada Saar iyadoo ku tilmaantay faragelin sharci darro ah oo lagu sameeyay dhulka ay Soomaaliya leedahay. Wasaaraddu waxay sheegtay in joogitaan ama howlgal rasmi ah oo laga fuliyo dhulka Soomaaliyeed iyadoo aan ogolaansho laga helin Muqdisho uu yahay mid sharci darro ah waxba kama jiraan ah kana maran wax qiimeyn ah. Booqashada wasiirka Israa'iil ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sii xoogeysanayso mucaaradnimada gobolka ee ku wajahan aqoonsiga Israa'iil siisay Somaliland iyadoo midowga Afrika uu maanta isugu yeeray kulan degdeg ah oo heer wasiir ah si arrintaasi looga hadlo. Kulankan oo horay ugu jirin ajandaha Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika ee bisha Janaayo ayaa si gaar ah loo qabtay kadib codsi ugu yimid dalal xubno ka ah ururka. Wasiirka arrimaha dibadda Masar Badar Abdelaati ayaa kulankan ka sheegay in aqoonsiga Israa'iil uu yahay xadgudub cad oo ka dhan ah madaxbannaanida Soomaaliya isla markaana uu dhigaya tusaale halis ah oo mustaqbalka dhibaato u keeni kara. Dhanka kale Ismaaciil Sharwac oo ah diblomaasi ka tirsan Somaliland ayaa booqashada Saar ku tilmaamay xilli taariikh oo astaan u ah xoojinta xiriirka labada dal oo dimuqraadi ah kuna yaala goobo istiraatiiji oo muhiim ah. Wuxuuna sheegay in iskaashiga diblomaasiyadeed uu yahay mid aan kaliya muhiim ahayn balse aan dib loo noqon karin. Israa'iil ayaa si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland in ay tahay dal madax bannaan 26 Diseembar taas oo noqotay horumar weyn oo labaad kadib markii ay xiriir la sameysay Taiwan sanadii 2020. Madaxweynaha Somaliland ayaa fariin u jeediyay habeenkii sanadka cusub ku sheegay inuu rajaynayo in dalal kale ay tallaabadaasi ku dayan doonaan. Senator Ted Cruz oo ah xildhibaan Mareykan oo si weyn u taageera Israa'iil kana soo jeeda gobolka Texas isla markaana ah taageero cad oo Somaliland ayaa ku booriyay madaxweynaha Mareykanka Mr. Donald Trump inuu aqoonsado Somaliland isagoo ku tilmaamay arrin istiraatiiji oo la jaanqaadaysa danaha amniga Mareykanka. Hase yeeshee Trump ayaa muujiyay in aanu arrintan dan gaar ah ka lahayn markii wax laga weydiiyay waraysi uu siiyay New York Post isagoo kaliya sheegay in arrintan la baarayo. Somaliland ayaa si kaligeeda ah ugu go'day Soomaaliya sanadii 1991 xilli dalka uu ka dhacay dagaalo sokeeye iyo burbur baahsan iyadoo Soomaaliya ay bilowday inay ka soo kabsato fowdadii horaantii 2000. Somaliland waxay gaartay xasilooni dabayaaqadii 1990-yadii iyadoo yeelatay dastuur u gaar ah baarlamaan iyo lacag u gaar ah. Soomaaliya ayaa si degdeg ah u cambaaraysay tallaabada Israa'iil iyadoo ku tilmaantay weerarkii ugu halista badanaa ee lagu soo qaado madaxbannaanida isla markaana bilowday olole diblomaasiyadeed oo taageero kaga raadinayso gobolka iyo caalamka. In ka badan 50 dal ayaa dhaleeceeyay go'aanka Israa'iil halka 10,000 oo Soomaaliya ay wadooyinka isugu soo baxeen dabayaaqadii Diseembar iyagoo dalbanaya midnimo qaran. Madaxweynaha Soomaaliya Mr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waraysi uu siiyay Al Jazeera ku sheegay in Somaliland ay aqbashay 3 shuruudood oo Israa'iil hordhigtay si ay u hesho aqoonsi. In Falastiiniyiinta laga soo raro Gaza lagu dejiyo Somaliland, arrin uu ku tilmaamay sifeyn diblomaasiyadeed iyo in saldhig ciidan Israa'iil leedahay laga dhiso halkaas iyo in Somaliland ay ku biirto heshiiska Abraham ee uu Trump hormuud ku ahaa kuwaas oo ay dalal badan xiriir caadi ah ula yeesheen Israa'iil. Somaliland ayaa si cad u beenisay in ay ogolaatay in Falastiiniyiin la dejiyo ama in saldhigyo ciidan laga hirgeliyo iyadoo ku adkaysatay in xiriirkeeda Israa'iil uu yahay mid diblomaasiyadeed oo kaliya laguna wado ixtiraam buuxa oo sharci caalami ah. Si kastaba ha ahaatee Bashir Gooth wakiilka Somaliland u fadhiya Mareykanka ayaa u sheegay Middle East Forum
in maadaama ay yihiin laba dal oo madax bannaan oo is aqoonsanaya xiriir diblomaasiyadeedna leh aanay jirin wax naga hor istaagi kara ama naga hor istaagi doona iskaashi amni ama heshiis dhanka ammaanka ah. Waqtiga booqashada Saar ayaa sidoo kale ku soo beegmay xilli ay sii kordhayaan xiisadaha ka taagan gobolka Badda Cas. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Carabiya ayaa Isniintii Qaahira kula kulmay madaxweynaha Masar Cabdulfataax al-Siisi iyadoo labada dal ay ku adkaysteen go'aankooda ah ilaalinta midnimada dhuleed iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Maalmo ka hor madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa telefoon kala duwan kula hadlay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha Imaaraadka Mohammed bin Zayed isagoo carabka ku adkeeyay in Turkiga taageersan yahay midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya iyo Yemen. Isku duwiddaas waxay ka turjumaysaa isbeddello waaweyn oo ka socda siyaasadda gobolka iyadoo Sacuudi Carabiya iyo Turkiga ay sii xoojinayaan iskaashigooda ka dhanka ah saameynta Imaaraadka Carabta ee gobolka Badda Cas, gaar ahaan Yemen halkaas oo dhowaan ciidamo Sacuudi ay isku dhaceen kooxo gooni-goosad oo Imaaraadku taageerayay, taas oo keentay in ciidamada Imaaraadka ay halkaasi ka baxaan. Hogaamiyaha fallaagada Xuutiyiinta Yemen ayaa isna ka digay in joogitaan kasta oo Israa'iil ku yeelato Somaliland loo aqoonsan doono bartilmaameed ciidan. Waxaan u aragnaa joogitaan kasta oo Israa'iil ay ku yeelato Somaliland bartilmaameed sharci ah oo ay ciidamadeenu beegsanayaan maadaama uu yahay gardaro ka dhan ah Soomaaliya iyo Yemen, isla markaana khatar ku ah amniga guud gobolka, ayuu yiri hogaamiyaha kooxda Cabdulmaalik al-Xuuti sida lagu daawacay warbaahinta fallaagada dabayaaqadii Diseembar. Dhanka kale, hogaamiyaasha dalalka Yurub ayaa mideeyay mowqifkooda iyagoo si cad u muujiyay taageeradooda Greenland kadib markii ay dib u soo cusboonaadeen hanjabaadyo ugu imaanaya Mareykanka. Hogaamiyaasha quwadaha waaweyn ee Yurub ayaa Talaadadii si midaysan u garab istaagay Greenland iyagoo carabka ku adkeeyay in jasiirad ku taala cirifka waqooyi ay si buuxda u leedahay dadkeeda kadib markii uu madaxweyne Donald Trump dib u soo cusboonaysiiyay hanjabaadiisii ay ahayd in Mareykanku la wareegayo dhulkaas oo hoos yimaada Denmark. Trump ayaa maalmihii dambe mar kale ku celiyay rabitaankiisa inuu gacanta ku dhigo Greenland, fikrad uu markii ugu horeysay shaaciyay sanadii 2019 intii uu hayay xilkiisa koowaad, isagoo ku doodayay in jasiiradda muhiim u tahay amniga iyo istiraatiijiyadda ciidamada Mareykanka, isla markaana Denmark aan wax ku filan ka qaban ilaalinteeda. Ku-xigeenka madaxa shaqaalaha aqalka cad Stephen Miller ayaa Isniintii meesha ka saaray walaacyada la xiriira madaxbannaanida Denmark. Waxaad ka hadli kartaan intaad doontaan xeerarka caalamiga iyo eedabaha diblomaasiyadeed, ayuu Miller u sheegay CNN, laakiin dunida dhabta ah waxaa lagu maamulaa xoog, awood iyo cudud. Howlgal militari oo Mareykanku dhamaadkii usbuucan ka fuliyay kuna soo qabtay hogaamiye ka tirsan Venezuela ayaa dib u kiciyay walaac laga qabo in Greenland ay wajihi karto xaalad la mid ah. Si kastaba, Greenland ayaa marar badan cadeysay inaanu marnaba dooneynin inay ka mid noqoto Mareykanka. Greenland waxay si buuxda u leedahay dadkeeda. Arrimaha khuseeya Denmark iyo Greenland waxaa go'aan ka gaari kara oo kaliya Denmark iyo Greenland, ayaa lagu yiri bayaan ay si wadajir ah u soo saareen hogaamiyaasha Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka, Talyaaniga, Poland, Spain iyo Denmark. Hogaamiyaashu waxay intaa ku dareen in ammaanka cirifka waqooyi uu yahay mid si wadajir ah looga shaqeeyo iyada oo lala kaashanayo xulafada NATO oo Mareykanka uu ka mid yahay. Ururka NATO wuxuu si cad u muujiyay in gobolka Arctic uu mudnaan gaar ah leeyahay, xulafada Yurubna ay kor u qaadeen kaalintooda, ayaa lagu yiri bayaanka. Annaga iyo xulafadeena kale waxaanu kordhinay joogitaankeena howlaha iyo maalgelinta si loo sugo amniga Arctic loogana hortago cid kasta oo khatar ku ah. Ra'iisul Wasaaraha Poland Donald Tusk ayaa wariyaasha kula hadlay Warsaw isagoo yiri xubin ka tirsan NATO ma aha in ay hanjabto ama ay weerarto xubin kale. Haddii ay sidaasi dhacdo, NATO micnaheedu iyo qiimaheedu waa ay luminaysaa haddii khilaaf iyo iska horimaad ka dhaxdhaco xulafada. Ra'iisul Wasaaraha Greenland ayaa soo dhaweeyay garab istaaga hogaamiyaasha Yurub isagoo mar kale ugu baaqay Mareykanka wadahadal ixtiraam ku dhisan. Wadahadalku waa inuu ku salaysnaadaa xaqiiqda in xaaladda Greenland ay ku dhisan tahay sharciga caalamiga iyo mabda' dhowrista midnimada dhuleed, ayuu yiri qoraal uu ku daawacay Facebook si ay ugu jawaabto dhaleecaynta Mareykanka ee ku saabsan awoodda difaacadeed ee Greenland. Denmark ayaa sanadkii hore ballan qaaday 42 bilyan oo kron Danish ah oo u dhiganta 6.58 bilyan oo dollar si loo xoojiyo joogitaanka militariga ee Arctic. Ergeyga gaarka ee Mareykanka Jeff Landry oo wax laga weydiiyay bayaanka Yurub ayaa Talaadadii u sheegay CNBC
amnigu waa inuu noqdaa walaac weyn oo Mareykanka u gaar ah. Markii la weydiiyay in arrimaha amniga loo wajaho si wadajir ah oo NATO ah, wuxuu yiri waxaan u maleynayaa inay tahay in aanu weydiino dadka Greenland laftooda. Trump ayaa bishii hore u magacaabay Landry oo ah gudoomiyaha jamhuuriga ee gobolka Louisiana inuu noqdo ergeygiisa gaarka ah ee Greenland, isagoo ka codsaday inuu hogaamiyo dadaalka la xiriira jasiiradda. Landry ayaa Talaadadii sheegay in Trump Greenland u bandhigayo fursado dhaqaale balse uusan aaminsanayn in madaxweynuhu awood ciidan ku qaadi doono. Waxaan u maleynayaa inuu madaxweynaha taageersan yahay Greenland oo madax bannaan oo xiriir dhaqaale iyo ganacsi la leh Mareykanka, ayuu yiri, isagoo ku daray in Mareykanku uu ka fursad badan yahay Yurub, goob istiraatiiji oo muhiim u ah nidaamyada difaaca gantaalada. Stephen Miller ayaa Isniintii sheegay in aanu loo baahnayn in arrinta Greenland lagu eego aragti howlgal militari ah. Qofna si militari ah uguma dagaalami doono Mareykanka mustaqbalka Greenland awgiis, ayuu CNN u sheegay. Saacado yar kadib howlgalkii Venezuela Sabtidii, xaaska Miller, Kate Miller, ayaa barta X ku baahisay sawir khariiradeed Greenland ah oo lagu midabeeyay calanka Mareykanka, iyadoo ku dartay ereyga soon oo u dhigma dhowaan. Greenland oo ah jasiiradda ugu weyn dunida balse ay ku nool yihiin qiyaastii 750,000 oo qof oo kaliya, ma aha xubin madax bannaan oo ka tirsan NATO, hase yeeshee waxa ay ku hoos jirtaa xubinnimada Denmark ee isbahaysiga reer galbeedka. Meesha ay Greenland kaga taalo istiraatiijiyad ahaan oo u dhaxaysa Yurub iyo Waqooyi Ameerika ayaa ka dhigaysa goob muhiim u ah nidaamka difaaca gantaalada ee Mareykanka. Sidoo kale kheyraadkeeda macdaneed ayaa la jaanqaadaysa hamiga Washington ee ah in ay yareyso ku tiirsanaanta dhoofinta Shiinaha.